xeeraryaashii iyo cali ayaa ka hadlay iyo wasiir beyle qudhiisa hayaankii ama geedi socodkii ay dacwadani soo martay oo dib ugu noqonaysa ilaa 1927 mustacmaradihii reer Yurub ee Afrika xuduudaha u sameynayay sidii ay u asteeyeen dawladdii rayidka iyo doorkay ku lahayd iyo dawladdii kacaanka oo waayo doodaha labada dhinac soo jeediyeen ama maxkamaddu baadhista ku sameysay waxa jirtay xilli madaxweyne ku xigeenadii hore ee Soomaaliya dawladdii militariga xilligeennii iyo Kenya ay arintan ahayd inay ka wada hadlaan dawladda Soomaaliyana waaga ay diiday inay ka hadasho mowduuc ku saabsan badda sababtuna ahayd hiyigii iyo fikirkii iyo siyaasadii arrimaha dibadda ee waaga ay hagaysay midnimadii shanta Soomaaliyeed maadaama aan dhulkiiba ku kala bixin sabab bad aan uga hadalna ma ay jirto ayaa fikirkii iyo falaasafadii madaxdii waqtiga raayigoodu ahaa laakiin runta ahaantii markaad u fiirsatid mas'uuliyiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalidu inay yihiin ayaa laga baran karaa kiiskan dad wadaniyiina oo dal jecel oo mararka qaar aad soonayso sida dalka ay u jecel yihiin maxay ugu ragi waayeen dibudhiska iyo qarandhiska dalka tacabka badan ee dal jacaylka marka shisheeye la ishayo ay geliyaan dawladihii soo kala maray kala duwanaa dawladda ku meel gaarkii ugu horeyso ilaa xilligii runtii Cabdillaahi Yuusuf 2007 2008 door weyn bay ku lahaayeen mimooyinkii ay Kenya rabtay in loo qoro iyo kaalintii ay ka istaageen iyo sidii ay u diideen sidoo kale Sheekh Shariif xukuumad iyo madaxweyneba iyo wasiiradii waqtigaas iyaguna door muhiim ah bay ka ciyaareen Xasan Sheekh madaxweyne Farmaajo iyo xukuumadihii kala duwanaa oo xukuumadeena ugu dambayso ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu yahay hormuudka waxa kiiskaasi ina baraya Soomaalinimada iyo wadaninimada iyo dal jacaylka oo ay tahay taa inaynu runtii u turjino inaynu adkayno dalkeena dhismihiisa iyo wada jirkiisa iyo midnimadiisa iyo qarannimadiisa oo aanay ahaanin haddaynu maanta u dabaaldegayno halganka dheer iyo heerarkii uu soo maray iyo guushiisa sidii ninkii la yiri waa doqon buu ahaayo waa la soo helay inta qosle yiri maxay idin iga soo heli oo idin ugu farxi barita baan lumi doonaa marka aynu ku faraadayno badda dheer uu Ilaahay ina siiyay khayraadka dalkeena ku duugan iyo hadda oo qayb weyn oo ka mid ah saddexda qaybood ee loo kala qaybiyo baribiyoodka aaga dhaqaalaha iyo qalfoof qaaradeedka intaba Soomaaliya waxay heshay saami aad u weyn 80% marka la isku celceliyo ahaanaya 100% 75% 3 meelood laba in ka badan celcelis ahaan isku noqonaysa 80% iyo wax ka badan inay Soomaaliya leedahay runta markaad u dabagashidna maxkamadda cadaaladda adduunku falaasafadaha sharciga jurisprudence ay isticmaasho waxa ku jira wax la yiraahdo equitable share theory oo had iyo jeer ay isku daydo maadaama xarunteedana Peace Palace la yiraahdo in nabadda adduunkana ay ka taliso marka wax badan yeynaan ku sii tiigaalin Kenya meel un baa madaxa loo galiyay ninkii odayga ahaa islaantii hooyada halaasi wuxuu yiri waa xadii oo meel madaxayada balaarsan bal horta meel madaxa u galiya iyada fidsan doonte marka nabadana waxay ka taraysaa Kenya meel baa madaxa loo galiyay maxaa inaga tagay oranina jaar baynu nahay xiriir baa inaga dhaxeeya waa jaarkaagana ma dooratid adigu inaad la noolaatidna waad ku qasban tahay hadda meesha aynu joogno waa run oo xukun sharciya baynu haysanaa oo cad oo dunida dhan yaala duniduna dhaqankeeda iyo sumcadeeda ayuu dal waliba eegaayo ixtiraamaa laguna qiimeeyaa shuruucda caalamiga ah qayb ka ah labadeenubana unkulas baan ku wada jirnaa istaadiyuudka maxkamadana waynu wada qaadano wada saxiixnay hadda se shaqo weyn baa inoo taala kiiskii waa ku guuleysanay waynu helnay halkaasun in lagaga hadhamaahay xukuumadda iyo shacabka iyo dawladda waxa uu taal shaqo adag oo ah sidii hawraartu ahayd halgankii yaraa uu dhamaaday laakiin halgankii weynaaba haray fulintii xukunkaas cadaaladda ku dhisan meel marintiisii waxyaabihii kala koobsanay oo dhinacyadii kala duwanaayay sharciga farsamada iyo badda culuntan ku saabsan xuduuduhu waxay leeyihiin geography
geomorphy waxay yiraahdaan geomorphy geophysics waxyaabahaas oo dhan oo Allah yarxama saalix oo aqoon dheer u lahaa ayaa lagu cabiraa aqoontaas waa u baahannahay farsamada tii sharci yaqaanka waan u baahannahay tii diblomaasiyiinta iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo xukuumadda waynu u baahannahay qaramada midoobay iyo meelaha kale ee ururadooda aynu ka mid nahay in lala halgamo waynu u baahannahay walka xeerlaaliin oo ka lahaa safaaradaheena in la xoojiyo oo waa runtii waliba shanta ugu waaweyn ee dunidu ku ururto haday tahay African Unionka haday tahay kuwa Carabta Masar haday tahay Kenya qudheedo qayb weyn safaaradeedaasi New York Geneva iyo Brussels waa meelaha dunidu isugu imanaysa diblomaasiyadda aad uga shaqeyso kiiskeeniina u baahan meel marintiisa iyo u sii loobi gareyntiisa in laga shaqeeyo waa hawlaha shaqo ahaan inoo yaala maanta walaalayaal hadaynu halkeenu taaganahay haddaba dalkani wuxuu u baahan yahay inuu kala nabad galo inuu nabad ku wada noolaado nabadna ku jiro nabadna ku hana qaado wixii khayraad iyo uu leeyahayna si nabada oo Ilaahay u calfay uu uga soo baxo meel dheer baynu ka nimid 19 dawladeenu way burburtay waa la yagleelay 2000 meel buu soo gaadhay maantana waxaynu maraynaa heer haddana ay tahay inaynu dhiig cusub ku shubno ama si laba kaclayso dawladnimadeena labada Soomaali bay u taala ka ay dooranayaan mid walbana se waxay naga saaran shaqo waajib ay naga saaran waana waxa kaliya ee aynu ku kala nabad galayno ee aynu ku sii jiri karayno haddaad u fiirsataan dacwadan casharada kale ee ku jira muddadii 19 ilaa 2005 oo ayna dawladnimada xooganayn maxkamaduna u aqoonsatay xilli Soomaaliya meed ayna waxba ka duwaneyn waxa kalifay in la inagu soo dhiirado waa dawladii oo aan jirin ama aan xooganaynba haddii tiiteedii aynu mar labaad ku noqono haddana dibba la inoo sii kala qaybsan doona haddaynaan maanta cagaheena ku istaagin waajibka xukuumadda ee nasaaranna gudanin dawlad iyo shacabba Soomaaliya dib bay u noqon doontaa doorashooyin baa lagu jiraa xilligeedii la gaaray 17 September baa ra'iisul wasaaraha la magacaabay maanta sanad baynu maraynaa ku talagalkuna wuxuu ahaa maadaama doorasho dadban aynu qaadanay 4 bilood gudahood ama 6 bilood ugu badnaan in golaha baarlamaanku ku soo dhamaado labada aqalba dabeedna doorasho loo dareero dabeedna cidii Ilaahay u calfaa ay hoggaanka u qabato Soomaaliyana meel dheer sii gaadhsiiso arrintaasi wali waa inoo taalaa doorashadaas bilaabantay waa inay hana qaadaa waa inay dhamaataa geed socodkooduna naga soo gabagaboobaa waqtigeediina marka baarlamaanku isu soo dhamaado shaqadii u taalay ee iyaga ay ahayd inay ka gutaan annagu haddaanu nahay reer waqooyi Ilaahay waa iskaaga afgaradsiiyay aqalkii sare ee ugu qurux badnaa marka doorashooyinka dhacay la eego ee jilib culustu ka soo baxeen ayaa ay doorteen Soomaaliland wasiir Saalax oo khabiir dastuurka ku xeel dheer iyo gafanayska wasiir Dubbe oo in badan maaragtay maxay oran jireen qoliyihii Dubba dhawaaqay saqdi dhexe markii halka la maray iyo dharkii Dubbe waa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waa Cabdi Xaashiyo soo laba kacleeyay waa wiilal iyo gabdhaba 12 culus waxaanu soo wadnaa inaan 46 u dhigma 12 kaas la doorto oo si xor oo xalaal runtii tartankoodu tusaale u noqdaan 12 kaasi siday tusaale ugu yihiin aqalka sare 46 kuna tusaale u noqdaan baarlamaanka intiisa kale taasaan damaanad qaadayna annagu markii aan fiirinay Soomaaliya waxay u baahan tahay inay kala nabad gasho doorashada ku kala nabad gasho laakiin waa aragtaan waa laga maagay doorashadii golaha shacabka in lagu dhiirado annagu waanu ku dhiiranaynaa toddobaadka soo socda waanu degdeggelinaynaa haddii Ilaahay marka maxay loo balana doorasho Soomaaliya waxay nooga weyn Soomaaliya inay kala nabad gasho xukuumaddan aanu waajib ku saaran yahay doorashadii inay hirgeliso waxaan baaq u dirayaa saaxiibadii madaxda dawlad goboleedada saaxiibayaalow doorashada hore aynu u bilowno bisha December golaha shacabku inuu inaga soo dhamaado ayaa inoo balana Ilaahay idinkiisa Soomaaliya taasoo ka wada shaqeynayna annagu waa ku dalagaleynaa toddobaadka soo socda aanu u jihaysanayna haddii Ilaahay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ku soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble si inoogu soo gunaanado inooguna barakeeyo inooguna duceeyo